maanta farxad bay noo tahay inaan taageerayaal cusub helno oo ka soo digaragtay iyagu may soo digaragone waa taageerayaashii ururadii muhiimka ahaa runtii ee eegaya saxada siyaasadda halkii ay u digaragon lahaayeen ururadii rays xaqsoor iyo dalsan oo madaxdooda qaarkood madaxdoodii gobolku ay halkan ku soo biireen madaxna ka noqdeen xisbiga cadaaladda iyo daryeelka kulliga waxaad leedahay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada marka ugu horeyso khudbadda muhiimka maanta waxaan siin doonaa injineer Faysal Waraabe gudoomiyaha xisbiga laakiin waxaan doonayaa dhowr qodob taabto maalin dhexdaas anigoo barbara in la hadlaaya ayaa maanta wuxuu ii sheegay in nimanka geelaha la yiraahdo xamaalinta dekada barbara ka shaqeeya inay maalin ku rogayeen iyagoo ku heesaya الله أوضل يؤذب سوعلي وحنا دلنا هاي أوضل ويشوك تأييد ميتين هالكي أذبنا أعد بايدين جلس إن شاء الله هالكي أذبنا أعد بايدين جلسة مركا وحبا إن شاء الله ينجح معنا ما يندلك السومال اللي هو تشري وانو تشري دونا مر والبا سبدل السياسة اللي ضدك السمايات way wanaagsan tahay oo kolba cid lagu eego cidaas kolba sida ay wax ka dhigto la eego hadii ummadda ay ku qanacsan tahayna ay ummaddu ugu celiso hadii aanay ku qanacsanayna in ay meel kale eegto aniga iyo Cabdirashiid Xasan Mataan iyo odaygayga xisbiga noo jooga oo rugcadaaga xisbigana ah hadii aan intaayada isku darsanno iyo xisbiga cadaaladda iyo daryeelka waxaan u maleynayaa markan inay ummaddu noo soo jeegto sababta aniga iyo Cabdirashiid bada ma shaqadeedii uga soo yimid baan nahay shaqadeeda internationalka ahaa ee aanu joognay niman ka yimid baan nahay saan dalka ugu soo hilowno aan ugu shaqeyno adeerni shaqo doonaya inaad meesha geysaan maaha nin shaqadiisa uga imanaya oo sacrifice u sameynaya inaad meesha u dhiibtaan baa wanaagsan haddaad nin xayraana meel u dhiibtid uu cunayaa meesha soo maaha waxaan idin sheegayaa adeer Somaliland halkii wad ogtiino waxa lagaga dhawaaqay burca lagaga dhawaaqay Somaliland laakiin aasaaskii iyo unugii Somaliland wuxuu ka bilaabmay Booramo ka bilaabmay Booramo hadii aanay Somaliland kala badbaadin lahayn 93kii Somaliland tan maanta aynu haysanaa ma jir lahayn aan runta isu sheegnay waxa weeye reer awdal iyaga Somaliland dhistay laakiin waxaan nasiib daraa in dhowr jeer horena waan ka hadlay welina imay dhageysan wasaaradda waxbarashada iyo dawladda hadda joogta war taariikhdii shirkii Boorama ardayda hal la baro war hal lagu soo daro manhajka taariikhda hal lagu soo daro war waxaan leenahay dawladda hadda bal intaasoo gobinimo qaato waan idin sheegaynaa ay ku dar laakiin anagu waxaan ballan qaadaynaa haddii ku dari waayaan annaga u joogna insha Allah annaga ku dari doona taariikhdaana ka sheekeynaa murashaxa madaxweynaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Jamaal Cali Xuseen oday dhaqameedka ama salaadiinta gobolka Awdal aqoon-yahanka kale ee fadhiya madaxda xisbiga ee la socota wafdiga dhalinyarada haweenka intiinaba waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maanta waa maalin farxadeed waa maalin qiimo badan waxaynu ku jiraa ciidii wali waxaan leeyahay ciid mubaarak farxad labaad waxa weeye waa maalin aynu dabaaldegayno haddii ay ku samoogol yahay taageero xooggan oo gobolku u muujiyay iyagoo nu kala hadhin xisbiga cadaaladda iyo daryeelka waa taageero ururadii siyaasadeed ee dalsan iyo rays iyo ummadda iyo xaqsoor oo maca xildhibaanadii uga soo baxay degmadu ay dhammaantood u soo digarogteen xisbiga cadaaladda iyo daryeelka waa guul u soo hoyatay waana arrin aan u hayno gobolka Awdal waa arrin ku dayasho yeelan doonta haddii aan la yidhaa oo aad maqli doontaan waxay ka bilaabatay mar kale Boorama inay u soo wada digarogdaan gobolada kale qudhoodu xisbiga cadaaladda iyo daryeelka haddii aan la yidhaa
marka waan hambalyeynaya taageerada waan hambalyeynaya go'aanka kulley go'aan qaadashadaasi ma aha wax bilaasha waa mid ku timi markaad eegteen saaxadda siyaasaddu sida ay maanta tahay markaad aragteen xisbigii dadku u hiiliyay ee la odhan jiray kulmiye in uu dadkii la ambaday oo uu la lumay ummadii waxay wax ku noqotaa waa sharci waxa ka lumay sharcigii sharci haddii la waayo cadaalad lama helo xisaabtan lama helo oo isogaansho lama helo marka waxa ka xiga waxa weeyaan hantiloonsi musuqmaasuq qof jeclaysi iyo wixii uu dal ku dumi lahaa marka halkan khudbad badan maanta ugama jeedo waxa ugu kaliya odhan lahaa waxa jooga raggiiga waaweyn